dhibka idin gaaray argagixisadu ay samaysay dadkiina aan waxba galabsan lagu laayay waa dhib dadka Soomaaliyeed oo dhan wada gaaray saacaddii uu dhibku dhacay madaxda ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay u xilsaareen guddi wasiirada inay u howlgalaan wax allaale in loo qaban karo dadka dhibka ku gaaray haddee nafna celin karin intii dhimatay allah u naxariisto weliba murug weyn ayay noo tahay inaan madiina taaganahay oo sheekooyinkiina iyo duruufihiin iyo wixiina kulli aan la socdo intii dhaawaca ahayd in isbitaalada la gaaro bilaash lagu daaweeyo dadkan ad arkaysaan ee culummada ah iyo hadda tacsi kale naga aadeen galabta oo nala shaqaynayeen oo bulshada rayadka ah oo ganacsatada ah oo madaxda dowladda ah waxay intaa u taagnaayeen dhibkaas wixii laga khafiifin kara in laga khafiifo laakiin waxaa ii jooga isbitaallada maalintuu dhibka dhacay ilaa iyo maanta isbitaalladay taagnaayeen hadda waxay ka yimaadeen garoonka diyaaradaha dhaawacii qaar ka mid ah oo 10 qof ah oo hadda diyaarada saaray oo la dhoweeyey marka runtii inaan maanta ujeeddadu waxay ahayd idinla kulan oo idin aragno oo idin baranno oo aan dadka idinka xigsanno oo aan meel idinku ogaano oon xaaladdiina la soconno oon xaaladda ilmaha agoonta ee laga dhintay la soconno oon xaaladda hooyooyinka la soconno oon xaaladda aabayaasha la soconno oon xaaladda walaalaha la soconno marka waxaad idiin daahiyeen hadda arkaysiina waxay ahayd ilaa xalay iyo maanta bal in la hubsano dadkay ahaayeen intan hadda maanta noo fadhisana waa qayb ka mid ah dadkii la xaqiijiyey inay dadkooda dhinteen qayb ka mid ah qaybo kalena waa jira waana ka shaqaynaynaa insha allah tacaala waxaan marka hore idin leenahay sida culammadu idiin sheegtay sabar allah idin marka labaadna waxaan idin leenahay waa idin garab taaganahay wax allaale iyo wixii awood ee aan leenahay ayaan idinku garab taaganahay aniga si gaara wasiirka waxbarashada waxaa amar la igu siiyey oo madaxweynaha amar la igu siiyey way faray inaan ka warhayo taakuleeyo waxbaro carruurta agoontaa ee laga tegay mas-uuliyaddaas wasaaradda waxbarashada ayay dusheeda saaranta teleefonadii maanta idinka qoray warbixinta idinka sameeyey kulligeed waan nala soo xiriiraynaa carruurteenna iyo ehelkeenna waxbarashada ku jirana ama waxbarashada geli doono waa laga warhaynayaa insha allah tacaala ilaahay inaada waajibkaasna waan qaaday waxaan ilaahay ka baryaynaa walaalaheennii gabdhaha iyo wiilasha lahay subaxa inaga soo tegay 29 Oktoobar ee sabtida ahayd ee aan xumaan nooga soo tegin ee daalimiinta dhiigyacabka ee bahaloobay ay hilibkooda bannaanka wareen waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynaynaa inuu ku tiriyo inay yihiin shuhadada ilaahay agtiisa ka qiimaysan ee ilaahay agtiisa ka noqon adinka iyo ehelkan in ilaahay sabab u idinsiyo dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go'an inay waddanka ka sifayso argagixisada ay ka sifayso adinka inay idin arko kumanaankii Soomaaliyeed ee wadannada ugu dilay inay u arko sidoo kaleetana shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa waxay u taagan yihiin inay iska xoreeyaan kuwa badana dhiigooda maalin kasta daadinaayo oo shubaayo
kuwa badanaa naftooda huraaya kuwa qoryaha u qaatay inay deegaanadooda iyo dadkooda ay ka xoreeyaan oo aanan lagu gumaysanin si khalad ah diinta loo fasiro aayadaha ilaahay way cad yihiin إلهي يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قفك نجدي جبل ويمكن ولكن مثل لم يدي هاي قفدتك أول شيء تدبر لي أنا أقول كله معناها لو حاولت سيدا حرام تهيئ قفك مسلم كائن بأي ذنب قتل محل لوزي dadkeen maxay kala qabsadeen doorkii soo tukadeen casarkii u socday inay tukadaan gurigoodii bay ka soo kalaheen mid dhaqaaqay mid xamaalay mid bajaaj waday mid maxaan ku ilaa duruuf iska haysay mid kala casaynay mid hilib gadaysay mid rooti gadaysay mid jidka iska maray بأي ذنب قتل ذاتك وخلطي المخلط يرجع دينتا لحظة الدار أو ما أنت كذب أيهدي كرامتي إن ذاتك للايات ولا لهم لايات وما يعدي الدين أو ولا أنها وشرفة كل آيات لحظة الدار أو أيلا يحب يراتي الدنيا كان وطلنا إن شاء الله تعالى آخران وطلنا إلهي مركز سبحانه وتعالى آخران وطلنا إلهي مركز سبحانه وتعالى مركز أذيك وحن كل الدين من صبر الإنقاذ أقول إن لو جداله أنك لما تسوت الدخول يرني وحقيقة الدخول أي تهاجم للسماسية تأكل يوم وزيد يقول بياري ولا لها صومالية أي بيننا إلا الجنسية لكن وحن أنت كوي الحبيب كالناس بتوقع أهانا كنت وحن آدي أقولون العلماء يتعدى معرفة المسلمين ورنتي وحبرا وقيد كقارتي إن حبتينا لهلا لنسور هذه يقولين عليك وجوه لنسور دورة هو ولينا يمقنا سلاس أيا نور الدنيا ولون دولية عاكرم جعل هذا المولمها العزيز ونعلها الصوماليات iyagoo aan qabiil idin fiirin iyagoo aan u fiirinin leeyihiin hantidooda ku tabarucay inay taakuleynta ku bixiyaan oo ilaahay hortiisa subxaanahu watacaala ay geystaan waxaanu rajaynaynaa inay kuwaas abaalkooda ilaahay kiisa ka helayaan guddiga aad aragteen culimmada ganacsatada aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka ana waxay u taagan yihiin درك وارما وحيد تاجنيه من أمانة ضد الرسول قاضي أي كارسيان ضد كمدن صحراء أي كارسيان هذا بدنا سنتين وحن رجينا إن يكون هذا واصل ضد كيبوديا أنا يروي القرآن إن شاء الله تعالى لا يراد أو شخص هاو الشيء معلم مانتا ويس كستا وحال سينيا لعد هل كل $1 وسبسيس وبلو إن شاء الله أقوتنا وانكور هاينا وأنا أسكور هاينا بإذن الله تعالى هيرا عن الجيجة قرارة وحمامور يصب ما دام لداهي إن قبلها لقبل الله ومركم وريتو وقفكي عليها لقبل الله كذبنا صارت هنا وعليسي الصحبة وأنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم.